بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu baqara. waxaa noogu soo dembaysay ama noo socotayba nimankii reer bani israa'iil ama ahlu kitaabkii yuhuudda dhaqanadoodii waxyaabahay samaynayeen. waxaa noogu soo dembaysay in ay ku kufriyeen wixii ilaahay soo dejiyey, sababtuna ay tahay xasad dartii ay xasdahayaan inuu ilaahay fadligiisa ku soo dejiyo cid allaala cidduu doono oo addoommadiisa ka mid ah. carray la gadoomeen buu yidhi ilaahay oo ay la laabteen oo carro dusheeda ahaatay. kaafiriintana cadaab muhiin ah ayay leeyihiin. haddii loo yidhaahdo rumeeya wixii ilaahay soo dejiyeyna waxay odhanayaan annagu waxaan rumaynaynaa wixii annagana loo soo dejiyey. wixiina loo soo dejiyey ayaan markaa rumaynaynaa, waana wixii annagana loo soo dejiyaan rumaynaynaa. wixii ka dambeeyey qur'aanka xaqa ahna way inkirayaan. qur'aankaasoo rumaynaya wixii micigooda ahaaday. waxaad ku dhahdaa buu yidhi ilaahay maxaad u layseen nebiyadii alle horay haddaad tihiin dad mu'miniin ah. walaqad jaa'akum waxaa idiin yimid muusaa, nebi muuse ayaa bilbayinaati aayaad cadcad ah idinla yimid. dumma intaa ka bacdina ittakhadtum waxaad ka samaysateen oo aad ka yeelateen alcijla, dibigii baad ilaahay ka dhigateen min bacdihi muuse kadib. muuse mar allaala markii uu soo baxay uu miihaaqii ballantii alle soo aaday iyo meeshii lagula waacaday ayaad dibigii ilaah ka dhigateen. wa antum daalimuuna, idinkoo ah kuwa daalimiin ah, kuwa dulmi falay oo shirki iyo edabdarra la yimid idinkoo ah ayaad dibigii ka samaysateen ilaah. waid akhadnaa, wadkuruu xusuusta id wakhti akhadanaa aanu qabanay miihaaqakum ballantiina oo warafacnaa aan kor qaadnay fawqakum dushiina atuura jabalkii oo aan idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinayno biquwatin xoog ku qaata, idinkoo firfircoon oo adkaysi iyo karti iyo firfircoonni iyo nashaad leh qaata waxaan idin siinaynay ku dhaqma. khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idinla nimidoon idin siinayna biquwatin si xoog ah ku qaata. wasmacuu maqla oo ku camalfala waxa ku dhex suganna. jabalta inta la soo fujiya sida noo imaan doontaa dushooda saa loo saaray ka'annahu dulla, sidii waxay harisay oo kalaa looga dhigay. ma idinku soo daynaa mase waad qaadanaysaan? khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinaynaa biquwatin ku qaata. wasmacuu maqlana. qaaluu waxay dhaheen samicnaa waanu maqalnay, wa casaynaa waana caasinay. waydabdarrii akhlaaq xumo meesha ugu dambaysa maqalnay oo caasinay. wa ushribuu waa la cabsiyey fii quluubihim quluubtooda alcijla, dibigii jacaylkiisaa la cabsiyey bikufrihim kufrigooda sababtiisa. qul waxaad tidhaahdaa bi'sa maa shay baa baas leh ya'murukum ou idin amrahayo idin faraya bihi shaygaa iimaanukum iimaankiina, in kuntum mu'miniina haddaad tihiin kuwa mu'miniin ah. sida aad sheeganaysaan wixii nala ku soo dejiyey ayaan rumaysannahay. ma dibi caabudaa ku qoran towraad? ma waxaa ku qoran in muuse gadaashiisa aad dibi ilaah ka dhigataan? qul bi'sa maa ya'murukum bihi iimaanakum. qul waxaad ku dhahdaa bi'sa maa waxaa baas lahaaday, bi'sa maa shay baa baas lahoo ya'murukum ou idin amrahayo bihi shaygaa iimaanukum iimaankiina. ida aad sheeganaysaan iimaankiina wuxuu idin amrayaa baas leh in kuntum mu'miniina haddaad tihiin kuwa mu'miniin ah oo markaa iimaan leh sidaad markaa sheeganaysaan ama towraad rumaysan. qul dheh rasuulkii allah waxaad dhahdaa in kaanat hadday ahaatay lakum adinka addaaru alaakhiratu daartii aakhire ee dambe cinda allaahi
alla agtiisa khaalisatan mid idin baraxla khaalis idin ah min duuni nnaasi dadka sokadooda fatamannawu lmowta maytamaniya inaad dhimataan jeclaysta marka hore in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya. way noo imaan doontaa waxay odhan jireen wax janno gelaya ma jiro ilaa man kaana huudan aw nasaara, qof yahuud ah ama nasaaro ah maahane, annaga uunbaa jannana loogugu talagalay. ayagoo xaalkoodu saa yahay oo hadalkaa ku hadlaya haddana dhimasho waxay ka necbanaayeen ma jiro. janno goormee la galaa? marka la dhinto oo rabbi hortii la tago, tii bayba necab yihiinba. xaaladdaasuu ilaahay tilmaamayaa. qul dheh rasuulkii allah waxaad ku dhahdaa raggaa yuhuudda ah, in kaanat hadday idiin ahaatay lakum adinka addaaru alaakhiratu, addaaru daartii alaakhiratu ee dambe cinda allaahi alla agtiisa khaalisatan mid khaas idiin ah oo idinka khaalis idiin ah min duuni nnaasi dadka sokadooda, fatamannawu lmowta geeri tamaniya, bal marka hore geeri jeclaystaba in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa markaa run sheegaya. haddaad run sheegaysaan bal geeri tamaniya. walan yatamannawhu ma tamaninayaan, ma jeclaysanayaan abadan weligood, waana bimaa qaddamat wixii ay hormarisay sababteeda aydiihim gacmahooda. gacmahaa laga cabbirayaaye waa wixii ayagu ay qabteen. wallaahu ilaahay caliimun waa alla ku cilmi badan biaalimiina daalimiinta. daalimiinta waxay yihiin iyo waxa ay falayaan iyo waxa ay samaynayaan intaba alla og waaye subxaana wa tacaala. ayagoo xaaladoodu saa tahoo janno annaga ma ahee cid kaloo gelaya ma la dhahaya iyo haddana dhimasho necab yihiin. wala yatamannawhu ma tamaninayaan oo ma jeclaysanayaan abadan weligood bimaa qaddamat waana wixii ay hormarisay sababteeda aydiihim gacmahoodoo dembi ah. wallaahu ilaahayna caliimun waa alla ku cilmi badan biaalimiina daalimiinta. walatajidannahum waad helaysaa yuhuuda axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin calaa xayaati nolosha dusheeda, nolol lagu dadaalo iyo sidii loo noolaan lahaa in lagu dadaalo sababteeda sidii loo heli lahaa raggaa yuhuuddaad ku arkaysaa. walatajidannahum waad heli yuhuuda axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan calaa xayaatin nolosha dusheeda inay yihiin. in layska noolaado oo adduunkan layska joogo aad bay ugu dadaalaan. wa min aladiina kuwii xaggooda xataa ashrakuu shariig yeelay, xataa mushrikiinta ayagaa uga dadaal badan in la noolaado. waayo yawaddu axaduhum midkood wuxuu jecel yahay low yucammaru in la cumri siiyo, low yucammaru in la cumri siiyo adduunka jooga 1000 sanatin 1,000 sano. wamaa huwa mana aha 1,000 sano bimusaxsixihi mid ka fogaynayo ka dhaqaajinaya min alcadaabi cadaabka an yucammara xataa haddii la cumri siiyo 1,000 sano maxay tahay beri bay dhammaanaysaa. wax kasta oo la tiriya waa qariib. saa darteed mid kastoo ayaga ka mid ah yuhuud wuxuu jecel yahay in la cumri siiyo 1,000 sano buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wamaa huwa mana ahaanin bimusaxsixihi min alcadaabi mid ka fogaynayee ka dhaqaajinayee ka durqinaya 1,000 sano cadaabka xaggiisa an yucammara xataa haddii la cumri siiyo. wallaahu ilaahayna basiirun alla arkaya buu ahaaday bimaa yacmaluuna waxay camal qabanayaan. ilaahayna waa arkayaa waana u jeedaa waxay samaynayaan. qul dheh rasuulkii allow man kaana qofkii ahaaday caduwan cadow lijibriila, jibriil cadow u ah ciilkiisa ha la dhinto. qof allaala qofkiiba jibriil necab soo ma aha, mut biqaydik xanaaqaaga la dhimo. jibriil fa innahu nazalahu asagu wuxuu dejiyey calaa qalbika qalbigaaga qur'aankuu ku soo dejiyey biidni illaahi ilaahay idinkiisa. howl la qabto howsha ugu wanaagsan oo laysku aamino yuu ilaahay ku aaminay subxaana wa tacaala. musadiqan qur-aankaasoo rumaynahaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaaday. wahudan hanuun xaal uu yahay. wa bushraa iyo bishaaro yuu u yahay lilmu'miniina mu'miniinta. jibriil calayhi assalaam malaa'igta midka ugu sharafta badan buu ka mid yahay.
waa safiirka alla u doortay subxaana wa tacaala in waxyiga uu ka soo qaado alla uu u soo dhiibo kadibna rusushiisa uu soo gaarsiiyo. jibriil ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay mutaacin hama amiin, waa nin sharaf iyo qiimo gooni ah leh, malaa'igta dhexdooda miise gooni ah ayuu ka leeyahay. sidaa darteed baa nimanka yuhuudda waxay dhaheen nebi moxamed, dhowr su'aal baannu ku weydiinaynaa, nooga jawaab. haddaad nooga jawaabtana waan ku rumaynaynaa. su'aalooyin badan ayay su'aaleen. ahlu jannuhu waxay cuni lahaayeen bay weydiiyeen. sababta markay wiilasha abuurmayaan ay wiilal u noqdaan, gabdhuhuna ay gabdho u noqdaan bay su'aaleen. wax kasta markay weydiiyeen oo nebiga uu uga jawaabay ayaa waxay dhaheen xabbaddii ugu dambaysay ee aan kugu rumayn lahayn ayaa dhiman. nebi kasta saaxiib ayuu leeyahay, waxyiga u keena, yaa adiga saaxiibkaa ah? kolkaasuu rasuulku dhahay jibriil. alla bay dhaheen maya maya maya, jibriil waa cadowgeenna. jibriil waa cadowgeennoo midkana baabi'iyeenna halaagay, ummadda loo soo diree halaajiye waaye. hadduu mikaa'iil ahaan lahaa waannu ku rumayn lahayn. cadowgeenniiba haddaad saaxiib la tahay ku rumayn mayna, waxaad nooga jawaabtayna taasaa u baasbaxday. rabbi baa soo dejiyey, qul dheh man kaana qofkii ahaaday caduwan cadow lijibriila, cadhadiisa ha la dhinto. wuxuu qaadi kara ma laha, fa innahu nazalahu, jibriil waa dejiyey calaa qalbika, qalbigaaga biidni illaahi, ilaahay idinkiisuu qur'aanka kula soo dejiyey musadiqan asagoo rumaynahaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaaday, wahudan hanuun xaal uu yahay, wa bushraa bishaarana uu u yahay lilmu'miniina mu'miniinta. man kaana qofkii ahaaday caduwan cadow lilaahi alle, wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa, wa rusulihi rusushiisa, wa jibriila jibriil, wa miikaala iyo miikaa'iil. wa miikaala fa ina allaha ilaahay caduwun cadow ayuu u yahay lilkaafiriina kaafiriinta. ilaahay cadow ayuu u yahay kaafiriinta. intaasoo dhanba qofkii cadow u ah buu leeyahay ilaah subxaana wa tacaala, oo ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo jibriil iyo miikaa'iilba. fa ina allaha ilaahay caduwun cadow ayuu u yahay lilkaafiriina. walaqad anzalnaa waan soo dejinay ilayka xaggaaga rasuulkii allow aayaatin aayaad baan ku soo dejinay, bayinaatin oo cadcad ah. aayaad bayinaad ahoo cadcad ah ayaan ku soo dejinay. wamaa yakfuru mana ku gaaloobo oo kuma kufriyo bihaa aayaadka ila alfaasiquuna, faasiqiinta maahane. dadka faasiqiintaee falaagada ah ee diinta rabbi aan lagu karin oo aan rabin maahee, in kaloo aayaadka alla kufrisaayi ma jirto. inta kale way aaminayaan, way rumaynayaan, way ku dhaqmayaan, way ku camalfalayaan, way raacayaan, way jecel yihiin. wamaa yakfuru biha kuma gaalooba aayaadka ila alfaasiquuna, faasiqiinta maahane. awa kullamaa caahaduu mar kasta oo ay la ballamaan cahdan ballan, nabadahu waxaa buriya ballantaa fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ah, bal akharuhum badankooduna laa yu'minuuna rumayn maayaan. mar kastoy cahdi qaadaan oo ay ballamaan, mar kastoo ay ballan galaan, awa kullamaa caahaduu cahdan nabadahu waxaa tuurayuu burinaya ballantii fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ah, bal akharuhum badankoodu laa yu'minuuna ma rumaynayaan buu yidhi ilaahay. walammaa jaa'ahum markii uu u yimid rasuulun rasuul oo min cindi illaahi alla xaggiisa uga yimid oo alla xaggiisa laga soo diray, markastuu rasuulkaa min cindi illaahi uga yimid musadiqun rumaynahaya limaa macahum wixii micigooda ahaaday, nabada waxaa tuurahayoo burinaya fariiqun koox oo min aladiina kuwii ka mid ah uutul kitaaba kitaabka la siiyey, kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisay tuurayaanoy burinayaan, waraa'a duhuurihim dhabarradooda gadaashiisay ka tuurayaan, ka'annahum sidii laa yaclamuuna ayn ogeyn oo kale. ka'annahum waxaad mooddaa sidii ayagoo laa yaclamuuna aan markaa ogayn. wax allaala wixii kitaabee xalla aggiisa uga yimaada, rasuul markuu u yimaado, rasuulkaasoo alla xaggiisa laga soo diray rumaynahaya, waxa micigooda ahaaday, nabada fariiqun koox baa tuuraysa oo min aladiina kuwii ka mid ah uutul kitaaba
kitaabka la siiyey maxay tuurayaan kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaashiisay ka tuurayaan ka'annahum waxaad mooddaa sidii ayagoo laa yaclamuuna aan ogayn oo kale. waayahe haddii kitaabkii alla ay tuureen maxay raaceen? waattabacuu waxay raaceen maakii tatluu ay aqrinahayeen ashayaatiinu shayaadiinta waxay shayaadiini akhrinaysay raaceen calaa mulki sulaymaana sulaymaan mulkigiisii cahdigiisii ballantiisa wamaa kafara sulaymaanu sulaymaanna ma uusan kufrinin walaakina ashayaadiina laakiinse shayaadiintii ayaa kafaruu kufrisay oo gaalowday yucallimuuna annaasa dadkaa waxay barahayeen assixra sixirkay barahayeen iyo wamaa kii unsila la dejiyey cala almalakayni labadii malag dushooda lagu soo dejiyey bibaabila dhulka baabil lagu magacaabo lagula soo dejiyey labadaa malagoo haaruuta wamaaruuta haaruut iyo maaruut kala ahaa wamaa yucallimaani ma aysan baraynin labadaa malag sixirka min axadin axad xaggii ay barahayeen ma jiro xataa yaquulaa ilaa ay u dhahaan innamaa in kale maahee naxnu anagu fitnatun fitno iyo imtixaan baanu nahaye falaa takfur ha kufrinin ha baranin ee iska daa waa lagu gaaloobaye fayatacallamuuna waxay ka baranayeen minhumaa labadaa malag xaggooda maa yufariquuna wixii ay ku kala geyn lahaayeenay ku kala qaadi lahaayaanay ku kala dhaqaajin lahaayeen bihimaaga bayna almar'i wa zawjihi ninka iyo naagtiisa bayna almar'i wa zawjihi wamaa hum mana ay ahaanin bidaariina kuwii ku dhibi kara bihi kaa sixirkaa min axadin axadna kuma dhibi karaan sixiroolayaasha ilaa biidni illaahi ilaahay idinkii maahane wayatacallamuuna waxay baranahayeen maa shay yaduruhum dhiba walaa yanfacuhum aan anfacayn wax adduunkoodii aakhiradooda dhib u keenahaya nafcina aan u lahayn bay baranahayeen walaqad calimuu waxay ogaayeen laman ishtaraahu qofkii iibsadaa maa lahu inuusan ugu sugnayn fi laakhirati aakhiro min khalaaqin wax nasiib ah walabi'sa maa shay ayaa baas lahaaday sharow ay iibsadeen bihi shayga anfusahum nafafyaalkooda low kaanuu yaclamuuna kuwa og hadday ahaan lahaayeen low kaanuu haddii ay ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwa og wixii ay iibsadeenay naftooda ku gateen oo ay barteen kaasaa markaa baas leh. aayaddu waxay tilmaamaysaa sixirka sidiisaba waa shay jira in la aamino inuu jiro laakiinse daatadiisii sidiisa inuusan waxba u dhimi karin. ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu imtixaan ahaan ugu talagalay. sidoo kale waa in qofka muslimkaa uu aaminaa dunuubta alla laga galo iyo dembiyaalka la galo weliba kuwa cadaabka qofka ku tiimbiya inay ugu waawen yihiin sixirka. rasuulku wuxuu dhahay 7 dembi oo lagu cadaab mutaysta ka fogaada. midka ugu horaysa waa ilaahay oo loo shariig yeelo. sixirka ayuu ku xujiyey sala allahu calayhi wasalam. sixirka iyo saaxiriintu ma liibaanaan. sixirooluhu alla agtiisa qiimo kuma laha. qof uu wax ka qaadi karaa ma laha ilaa ilaahay wuxuu asagu dadka u qora maahana subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed daatadiisii sidiisaba ayuu rabbi noo tilmaamayaa. sheekada la tilmaamahayo 2 nebi ayaa la soo dejiyey oo adduunka joogi jiray wax kala xukmin jiray. mar allaala markay xukun ku dhammeeyaan ayay samada aadi jireen. gabar baa u timid. waxyaaba noocaasay kula kaceen. inay duulaan bay damceen. way duuli waayeen. ayadiibaa duushay. xiddiga zuhri bay noqotay. xaaladda noocaasaa malaa'igtii la cadaabayaa. waa la soo laalaadiyeyoo afkoodaa dhibaato iyo malax ka baxda. saasaa lagu ciqaabaa. waa sheekaan waxba ka jirin. aayadda waxay tilmaamaysaa sixirka iyo xaaladdiisa. rabbi wuxuu tilmaamay dadka inay akhrinayeen waattabacuu maa tatlu shayaaiin. waxay shayaadiinii akhrinaysay inay raaceen wakhtigii sulaymaan. sixirka in lagu gaaloobayo waxaa laga fahmayaa rabbi wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma uusan kufrinin walaakina ashayaaiina kafaruu laakiin shayaadiintii baa kufrisay.
waayo yucallimuuna annaasa asixra sixirkay dadka barahayeen. waxaa la tilmaamaya wamaa unsila cala almalakayn waa 2 malag dhulka baabila ku soo degahayay, haaruud iyo maaruud. sixirkaa loo soo dhiibay, sababtuna waxay ahayd in dadka ay u kala caddeeyaan, ay u sheegaan in lagu gaaloobayo. qofkii yidhaahda anaa rabana inay markaa baraan, waayo ilaah wuxuu yidhi wamaa yucallimaani min axadin, cidinama aysan baraynin xataa yaquulaa ilaa ay dhahaan innamaa naxnu fitnatun falaa takfur. idan waa malaa'ig, way u naseexaynahayaan. markaa kadib hadduu dhaho anaa u baahan gaalowga, way baraayeenoo fayatacallamuuna waxay ka baranayeen minhuma labadooda xaggooda maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi. sixirku aad buu u dhib badan yahay. 2 qofood oo isqabta oo maxabii kalgacayl ka dhaxeeya yuu kala dhaqaajinayaa. inta balaayo loo sameeyo, kuwa biyo la cabsiiyo, ku caano wax loogu daro, yay ummaddu isugu necbaanayaanoo libaax iyo ri oo kale kala noqonayaan. saa darteed buu ilaah yidhi maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi. teeda kale waxaa la tilmaamayaa wax sixirkii sixirooluhu dadku ay ku dhibi karaan inuusan jirin ilaa ilaahay wuxuu idmo maahane. wamaa hum bidaariina, ma aha kuwa ku dhibi kara bihi sixirka min axadin ilaa biidni illaah, ilaahay idinkiisa maahane. wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum. dur meehee nafci ma laha, dhib ma ahee dheef ma laha, xumaan meehee wanaag ma laha. maa yaduruhum walaa yanfacuhum, waxaa duraayo aan nafci lahayn. walaqad calimuu laman ishtaraahu, waxay ogaayeen qofkii iibsada oo barta maa lahu fi alaakhirati min khalaaq, inuusan aakhira wax nasiiba ku lahayn. wala bi'sa maa sharow, waxaa baas lahaaday wixii ay ku gateen bihi shayga anfusahum nafyaalkooda. low kaanuu yaclamuuna, kuwoog haddii ay ahaan lahaayeen, walow annahum, haddii ay ayagu aamanuu rumayn lahaayeen oo wattaqow ay cabsan lahaayeen, ilaahay waa abaalmarin lahaa. lamahuubatun abaalmarin oo min cindi illaahi, alla agtiisa ahaatayaana khayrun khayr badan. ilaahay abaalmarka agtiisa ahaadaa la abaalmarin lahaa, kaasaana u khayr badan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. abaalmar qiimo badan oo sharaf leh ayaa la siin lahaa. khayrun low kaanuu yaclamuuna, kuwa og haddii ay ahaan lahaayeen. yaa ayuha aladiina kubi aamanuu ilaah rumeeyayo, laa taquuluu ha odhanina raacinaa, kelimadaa raacinaa ha odhanina. rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaad la dhawaaqaysaan ama aad la hadlaysaan, raacinaa ha dhihina. waquuluu, waxaad dhahdaa undurnaa, kelimadaa undurnaa isticmaala. raacinaa undurnaa waa isku macno, laakiin kelimada yuhuudda marka loo eega raacinaa way noo imaan doontaane waa layan bialsinatihim, waa leexin carabyaalkay ku leexinayaan, iyo wa tacnan fi ddiin. raacinaa marka xaggooda loo fiiriyo waxay noqonaysaa doqonkan, midkaan raacigeenna ah, doqonkan bay ula jeedaan. saa darteed saaha isticmaalinee waquuluu undurnaa, na eeg dhaha, na soo fiiri. wasmacuu, maqla hadalkiisana. walilkaafiriina, kaafiriintuna cadaabun, cadaab bay leeyihiin, aliimun ee xanuun badane. kaafiriinta cadaab xanuunjiya oo aad iyo aad u laxawiya ayay leeyihiin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyayow, laa taquuluu ha odhanina rasuulka raacinaa ha dhihina, na ilaali ha dhihina. kelimadaa raacinaa waxaad ku beddeshaan waquuluu, waxaad dhahdaan waquuluu undurnaa, na soo eeg dhaha. macnaha raacina undurnaa waa isku mid, laakiin kelimadaa raacinaada ah ayaa waxay noqonaysaa bedelitaan, waxay noqonaysaa tacni iyo duritaan diinka la duro, waxay noqonaysaa hadal aan wanaagsanayn, waxay noqonaysaa hadal haddii la fiiriyo luqadooda hadal aan wanaagsanayn ku ah. way noo imaan doontaa suuratu nisaa markii aan gaarno. min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi, kuwa yahuudoobay kelimadii booskeeda ka taxriifinayaan. wayaquuluuna samicnaa wacasaynaa wasmac hayra musmacin waraacinaa layan bialsinatihim watacnan fi ddiin. saasuu ilaahay tilmaamay. dadkaa waxay ka beddelayaan kelimada booskeedii. wayaquuluuna samicnaa wacasaynaa,
waxayna odhanayaan maqalnay caasinayna wasmac maqal hayra musmacin mid la maqla kayrkii adigoo ah wa raacinaa bay leeyihiin. raacinaa maxay u leeyihiin? waa layan leexin bialsinatihim luqadooda marka la fiiriyo carabkooda iyo watacnan fi ddiin. walow annahum qaaluu samicna waatacna wasmac wandurnaa lakaana khayran lahum wa aqwam buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. hadday dhihi lahaayeen samicnaa wa atacnaa maqalnay oo ateecnay wasmac maqal wandurnaa meeshii raacina ay dhaheen wandurnaa hadday dhihi lahaayeen lakaana khayran lahum kaasaa u khayr badnaan lahaa wa aqwam taasaa u toosnaan badnaan lahayd. walaakin lacanahum allahu bikufrihim falaa yu'minuuna ilaa qaliila. xaaladdaasuu marka ilaahay tilmaamaya oo muslimiinta waxaa looga digayaa raacina, beddelkeedana waa inay ku beddelaan waquuluu undurna na soo eeg wasmacuu maqlana rasuulka amarkiisa iyo warkiisa. walilkaafiriina kaafiriintana cadaabun cadaab bay leeyihiin aliimun ee xanuun badane. maa yawaddu aladiina kuwii ma jecla kafaruu kufriyey oo min ahli اlkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah wala almushrikiina iyo mushrikiintaba ma jecla buu yidhi ilaahay ma jecla an yunazala in la dejiyo calaykum korkiina min khayrin khayr in lagu soo dejiyo oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday. wallaahu ilaahayna yakhtasu wuxuu ku khasisaa wuxuu si qaasa u siiyaa biraxmatihi naxariistiisa man yashaa'u qofkii uu doono. wallaahu ilaahayna dulfadl alla fadli u saaxiib ah waaye alcadiimi ee markaa weyn. ilaahayna alla fadli u saaxiiba ayuu ahaaday fadligiisana uu weyn yahay. sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala cidduu doonuu ku qasisaa, cidduu doonuu si khaasa u siiyaa. ahum yaqsimuuna raxmata rabbik ma ayagaa qaybiya rabbigaa naxariistiisa. naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya annagaa ku qaybinayna buu dha ilah subxaana wa tacaala. raxmadda ilaahay suu doonuu u bixiyaa, cidduu doonuuna siiyaa, ciduu kala tashanayana ma jiro subxaana wa tacaala. idan nimanka ahlu kitaabka ee kaafiriinta buu dhaha ilaahay ma jecla in khayr laydinku soo dejiyo. mushrikiintana saasoo kale. maa yawaddu aladiina kuwii ma jecla kafaruu gaaloobay oo min ahli اlkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah wala almushrikiina iyo mushrikiintaba an yunazala in la dejiyo calaykum korkiina min khayrin khayr xaggii in laydinku soo dejiyo. weliba min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay. rabbigiin naxariistiisa cid allaala cidduu doonuu siiyaa. ayagu marka raxmadda alleh iyo khayrka alleh iyo wax allaala wixii khayr ahoo wanaagsan oo weliba rabbigiin xaggiisa idinkaga imaanaya ma jecla in laydinku soo dejiyo. nimanka ahlu kitaabka waa cadow, idinma rabaan, idinma jecla. wallaahu yakhtasu allase wuxuu ku khasisaa uu ku qaas yeelaa uu si gooniya u siiyaa biraxmatihi raxmadiisa ma yashaau qofkuu doono. ilaahay cid allaala cidduu doono si khaas ah ayuu u siinayaa naxariistiisa. wallaahu ilaahayna dulfadl waa alla fadli u saaxiib ah alcadiimi ee weyn. fadli cadiim ah ayuu u saaxiib yahay ilaahay. maa yawaddu aladiina kuwii ma jecla kafaruu kufriyey oo min ahli اlkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah waa yahuudiya nasaare wala almushrikiina xataa mushrikiinta ma jecla an yunazala in la dejiyo calaykum korkiina inuu ku soo dego min khayrin khayr inuu idinku soo dego. in dushiinna khayr lagu dejiyo, nebinimo, risaalo, nimco, barwaaqo, khayr, caafimaad, intaasoo dhan maba ka helaanba. waxay kaga naceeb badan yihiin muslimiinta guul heshay ma jirto, muslimiinta khayr gaartay ma jirto. saa darteed buu ilaahay yidhi an yunazala in la dejiyo calaykum korkiina min khayrin khayr oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday. wallaahu ilaahayna yakhtasu wuxuu ku qasisaa uu isku gooni yeelaa si qaas ah u siiyaa biraxmatihi raxmadiisii naxariistiisa waxay doonto ha ahaatee man yashaau qofkii uu doono. ciddii uu doonuu siiyaa ciduu kala tashadaayayna ma jiro. wallaahu ilaahayna dulfadl alla fadli u saaxiib ah ayuu ahaaday. fadli alcadiimi ee markaa weyn. ilaahay alla deeq weyn u saaxiib ah ayuu ahaaday subxaana wa tacaala.
idan qofkuu doonuu siiya, ciduu kala tashanayana ma jiro, cid kula xisaabtamaysana ma jiro. maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin wabiاllahi tawfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala aclam.